السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada mar kale asxaabta sharafta leh. Weli waxaan gudaha uga jirnaa qaybtii sponsorshipka. Maantana waxaan ka hadlaynaa the Blended Visa Office Referred Program. Programka loo yaqaano BVOR. BVOR waxaa waaye ereyga blended waxaa loola jeedaa yacni wax la isdhexgeliyey, laba shay oo la isdhexgeliyey. Halkan marka waxaa wada shaqeynaya yacni dadkii shacabka ahaa oo ahaa muwaadiniinta ama permanent residentiga ahaa iyo dowladda. Dabcan saan hore uga soo sheekeeyay gaar dowladda keliya ayaa damaanad qaadayso dadkaas, laakiin kan waxaa waaye waxaa iska kaashanaya dowladda iyo dad shacab ah. Marka dadka shacabka ayaa waxay sameynayaan, waxay u tagayaan ama arji u gudbisanayaan hay-adaha ku shaqada leh, maxaan ku irahdaa sponsorshipka, keenista dadka ay sheeg refugee-ga ah. Then waxay u sheegayaan in ay rabaan in ay keenaan dad maxaan ku irahdaa refugee ah ee caawiyaan. Xaaladan dadkaas wax keenayo iyo dadka la keenayo labadaba isma yaqaanaan. Dadkan waa dad raba in dad maaragtay si ibnaadinimo ay u caawiyaan. Again, UNHCR ayaa maxaan ku irahdaa waxay soo gudbinaysaa listi ayay usoo gudbinaysaa office-kan oo the Blended Visa Office Referred ayay usoo gudbinaysaa. Listigaasna waxaa ku qoran dad caawinaad degdeg ah u baahan oo unique situation ku jiro, xaalado micnaha oo ka duwan xaaladaha normalka ama dadka maaragtay qaxootiga caadiga ah totally ka duwan. qaabka u shaqeeyaa marka BVOR-kan. BVOR-kan qaabka uu u shaqeeyo waxaa waaye sidaan horeyba u sheegay, dowladda iyo dadka shacabka ah ayaa wada shaqeynayo si ay u keenaan dadkaas refugee-ga ah. Markii dadka refugee-ga la keeno, mas-uuliyadda marka waxaa qaybsanayo xagga dhaqaalo, xagga dib u dejinta iyo xag kasta markii la fiiriyo waxaa qaybsanayo dowladda iyo dadka maaragtay shacabka ah ee raba dadka inay soo sponsoraan. Marka 6 bilood waxaa maaragtay damaanad qaadayo xagga dhaqaalaha iyo xagga dib u dejintooda waxaa damaanad qaadayo dowladda. 6 bilood kala soo hartayna waxaa damaanad qaadayo dadka muwaadiniinta ah ee shacabka ah. Dadka muwaadiniinta marka raba inay dad keenaan waxay noqon karaan dad business iskale caadi iska ah, dad iska shaqeysto, dad asxaabo ah ama ahal ah oo intay isu yimaadeen yiraahdeen war laba qof ama hal cid ama hal family oo refugee aan keeno, kadibna la xiriiro hay-adaha hawshaas shaqada ku leh, kadibna maxaan ku irahdaa processka saas ku gala. Dadkaas markii la keeno marka dadka muwaadiniinta ah ee keenay dadkaas ayaga ayaa airportka ka doonayo keenayo, ayaga ayaa u raadinayo guri email ay degaan, ayaga ayaa caruurta u geenayo school, ayaga ayaa laga rabaa in maxaan ku irahdaa dadka waaweynka ay kasoo qoran kalaasi oo luqadda ingiriishka ama faransiiska ah hadba gobolka ay tagaan ku xiran tahay. Sidoo kale in ay u helaan meel oo maaragtay dad ayaga dhaqan ahaan iska agdhow yihiin ay maaragtay ku kulmaan, sida maaragtay cultural centers oo kale ama community centers oo kale inay geeyaan, ama xitaa meelaha maaragtay masaajidada ama kaniisadaha iyo meelahaas inay geeyaan. Sidoo kale in ay tusaan dadkaas sida maaragtay basaska ama tareenada loo raaca inay tusaan, sida maaragtay suuqyada looga adeegto inay tusaan, waxyaabahaas oo dhan ayay tusayaan. Sidoo kale waxay ku xirayaan maxaan ku irahdaa hay-adaha bixiya adeegyada maaragtay loogu talagalay dadka wadanka soo galootiga ku ah inay ayagana ku xiraan ayaa laga rabaa. Dadka maaragtay BVOR-ka ku yimaado ama nooca programkan ku yimaado dad noocee waa. Dadka lagu keeno programkan waa dad xaaladooda ay tahay xaalad complex ah, xaalad aanan normal ahayn oo ka adag xaaladaha dadka kale. Waa dad maaragtay vulnerable ah oo maaragtay dhibaato weyn ay soo gaarayso haddii ay maaragtay dhulkoodii mowlaad ku noqdaan. Dadkaas waxaa ka mid ah dad maaragtay loo dhibaateeyo maadaama ay yihiin dad siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowlad maaragtay dowladda wadankaas xukunto, ama dad maxaan ku irahdaa la jir dilay, la dhibaateeyey oo dhibaato maaragtay xag jireed iyo xag maskaxeed bay soo gaartay lamida ayaa maaragtay wadankan ay dowladda Canada keentaa.
marka BVOR asigana waa saas. Again, BVOR ma ahan inaad keenayso qof adiga ahalkaaga ah ama qof adiga aad garanayso. Programka ayaad arji u qoranaysaa, kadibna ayaga ayaa kugu match gareynayo. Yani waxay ku leeyihiin okay, waxaan ku helnay family, for example Afghanistan ama family Ukraine ama family Soomaaliya ama family Syriana oo duruuf adag ku jiro. Markaasay ku sheegayaan qaybta adiga laga rabo, qaybta kalena dowladda ayaa damaanad qaadayso. Sanad kadibna ayaga ayaa laga rabaa in ay wadanka la qabsadaan oo ay maaragtay isdabaraan wadankana ay wax soo geliyaan. insha Allah qaybo kale ayaan ka hadli doonaa. aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina. la qaybsada asxaabtiina, muujiya taageeradiina si maaragtay fiidiyoyo kale oo badan aan usoo sameeyo insha Allah, asxaab badan ay u gaaraan fiidiyoyadan. aad ayaad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.